bogga qabyaaladii TV ee barta YouTube-ka oo walaalkiin Fuaad Qabyaaladid waxaanu hadduu eebweyn idmo soo qaadan doonaa gabay la yiraahdo dhalinyarada. gabaygan soo socda waxaa curiyay gabyaagii weynaa caankana ahaa ee Xaaji Aadan Afqalooc naxariistii janno eebe ka waraabiye. wuxuu ka hadlayaa waqtiga xilka weyn ee uu garbaha u suray dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo odayaashii dalka xilka u hayn jiray gabow iyo waqtiga isbedelkiisa arrimaha ka dhashay awgood aan maanta iyaga waxtar magac leh laga filan. gaar ahaan wuxuu ku guubaabinayaa dhismaha dhaqaalaha, waxbarashada, shaqada, wadajirka, iskaashiga, siyaasadda iyo dadaalka iyo feejignaanta horumarka ummadda Soomaaliyeed ee kula tala jirto una hanqaltaagayso. gabaygu waa mid marka aad dhegaysanayso amaba aad akhrinayso aad isleedahay Alleh waxaa la curiyay imikadan la joogo marka loo eego sida aan siyaasad ahaan u kala daadsannahay, dhaqaale ahaan u liidano iyo tafaraaruqa badan ay sababtay qabyaaladu. xaajiga waxaad u malaysaa in gabaygu uu yahay mid sidii asagoo loo sii khabar warramay oo u tiriyay. xaajigu wuxuu ku halqabsan doonaa weero maldaxan, wuxuu ku halqabsan doonaa sidoo kale deerta oo kale ayuu soo qaadan doonaa isagoo ka tusaaleynaya dhinacyo badan. waxaan rajaynayaa haddii aynu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed inaynu kala baxno mugga iyo duxda iyo miida gabaygani uu xambaarsan yahay oo inteena badan ee maanta dhalinyarada Soomaaliyeed xilligii xaajigu uu curiyay eebe naxariistii jannaha ka waraabiye aynan dhalan. gabaygu wuxuu ku bilaabanayaa hadduu geed engago xaabada laga idleystaaye mid yar oo iniintiisa ahbaa soo awaalbaxa usugaa anficiga harkiyo ooda kaafiye dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisu ubadkooda haraba tabco ayatiin hele aadan iyo xaawo iyo markii keenta la abuuray sidaasay arwaaxda iyo dhirtuba ku isireeyeene ummadan shabaabkeedu xanan wow ayaan huma inama iyo hablaba waxaa tihiin aarankii kacaye itaalgabe dadkiinnii hore oo waydin aragtaane idinka ammaanada xilkii eegan qaabilaye iskaa wax u qabsada noloshu waa dubdhaxaadkii. isriibka iyo fadhigu waa waxaad ku ambanaysaane axmaqnimo iyo waqtiga kaaga tagay oo hinkugu reebi aayatiinku dhaaftaana waa waxaan la eegayne arsaaq yaridu waa caajiskan la ogolen hawle ma amdaro cirkuye lacagta waa lagu adeegaaye axadkii kaslaan ihina sabool abidkii weeyaane rabbinimuu laxaadka u ebyey oo camal awood waayey oo aan shaqo naftiisu ogoleen waa abaaldhacaye. istiqlaalka waxaa taam ka dhiga waa adduunyada mar haddii dhaqaaluhu akhiro calanku ilmowye kolkaasuu amaahiyo baryaba aradku doonaaye icaanaduna xornimaday u tahay eebadii malage albaabkuu guumaystuhu ka hado umamka weeyaane wixii uu ajnabi kuu qabtaa aayatiin ma lahe isku tiirsi baydiin eg ururin xoolaade ictisima islaamkaa la yidhi gabi ahaantooda aayadaha diinta iyo sharciga way nagu amreene axaadiista nebigay ku timi saa ku aragteene ikhtilaafku waa naar jannana waa isu imaade raganimo nimaan tacab ku arag aayar heli waaye ijtihaad gobanimo dhibbaa lagu ilaashay.
dhalinyarada waa ku mahadsantihiin sida wacan ay gabayga u dhagaysateen haddii aad hore aadan u subscribe gareenin qabyaaladii channel fadlan imika subscribe garee la sii wadaaga saxaabtaada gabaygan dhiirigelinta mar walbana waxaa idinla wadaagi doonaa hadduu eeb weyne idmo gabayo aan soo codeeyey oo dhiirigelina kuna saabsan dhaqanka iyo hidaheena iyo dhan walba oo sugaanteena ah oo laakiin faad qabyaaladiyadu adila dugsi mala qabyaaladii waxay dambiso mooyaane mahadsanidin